السلام عليكم نبض داوديال meel walba dunida ka joogtaan halkan waa channelka Dulmidi TV kuna soo dhawaada daawadayaal barnaamij gaar ah aynu ku eegi doonno hadduu Allaah awood loo ogolaado dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan tagay ee 2019 ka dhacay Somaliland waxa soo saaray barnaamijka isla markaana isku soo dibirday idinla socodsiin doonana hadduu Allaah awood loo ogolaado anigoo ah Farxaan Maxamed Cali Farxaan Fantastiga kuna soo dhawaada daawadayaal haddii aynu ka horeyno 20 January 2019 wasiirkii hore ee wasaaradda isgaarsiinta Somaliland Maxamed Abgaal ayaa sheegay in uu lumsaday lacag intii uu xaq u lahaa in ka badan taasi oo uu markii dambe ka codsaday shacabweynaha reer Somaliland in ay ka cafiyaan lacagta uu lumsaday 18 March 2019 wafdi uu hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda dalka Eritrea Cismaan Saalax ayaa booqasho ku yimid Somaliland 9 Abriil 2019 waxaa berbere laga dhagax dhigay warshad sifeen doonta batroolka qayrin 10 May 2019 xildhibaan Dhakool oo ka tirsanaa golaha wakiilada ayaa xabsiga loo taxaabay 11 May 2019 waxaa magaalada Hargeysa ku geeriyooday Allah u naxariistay naxariistiisa jannada ka waraabiye Xaaji Cabdi Waraabe oo ah oday nabadeed si weyn loogu yaqaanay Somaliland iyo guud ahaan baagiga ay Soomaalidu degto kuna suntanaa nabadda Somaliland 24 June 2019 xoolihii ka dhoofi lahaa dekada Berbera waxaa ku yimid hakad kadib markii dawladda Sacuudi Carabiya ay ka dalbadeen in xoolaha u imanaya waraaq ay ka soo qaataan dawladda Soomaaliya taas oo Somaliland ay diiday waxaanay sababtay in markab xoolo saarnaayeen oo ku xirnaa dekada Sacuudi Carabiya kadib markii halkaasi uu muddo ku xirnaa ay markii dambe la furdaamiyay 2 July 2019 madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa safar shaqo ku tagay Jamhuuriyadda Guinea kadib markii uu martiqaad ka helay madaxweynaha dalkaasi Professor Alpha Conde taasina waxay keentay in Soomaaliya ay xiriirkii diblomaasiyadeed ay u jarto dalkaasi taasi oo markii dambe cirka ku laashay wada hadaladii la sugayay in ay dhex marto Somaliland iyo Soomaaliya 8 July 2019 maxkamadda gobolka Maroodijeex ayaa wariye Cabdimaalig Muuse Coldoon ku xukuntay 3 sano iyo 6 bilood oo xarig ah 27 July 2019 saddexda xisbi qaran ee Somaliland ayaa ku heshiiyay in ay doorashada golaha deegaanka iyo tan golaha wakiiladu waqtigoodii la qabto 22 September 2019 Sheekh Maxamed Idris oo magaalada Hargeysa yimid oo doonayay in uu ka furo tababar balse xukuumadda Somaliland ay diiday tababarka uu sheegay in uu ka furayo caasimadda Somaliland ee Hargeysa 23 October 2019 xisbiyada mucaaradka ah ayaa booqday dhul la sheegay in ay isku haystaan qoyska madaxweynaha iyo dad shacab ahi halkaas oo ay markii dambe xisbiyada mucaaradka oo dhaliilo kulul ay ugu soo jeediyeen xukuumadda isla 23 October 2019 xogahii arrimaha dibadda ee xisbiga wadani Faadimo Saciid oo xilkii iyo xubinnimadii xisbiga ay u haysay iska casishay 26 October 2019 Somaliland oo laga dhagax dhigay xarun weyn oo lagu kaydin doono taariikhda Somaliland oo laga dhisayo bartamaha magaalada Hargeysa 28 October 2019 carwadii buugaagta ee ugu horeysay oo la saacanood laga furay 16 November 2019 xukuumadda Somaliland ayaa xabsiga u taxaabtay 9 qof oo u dhashay waddanka Imaaraadka Carabta kuwaas oo lagu soo eedeeyay in ugaarsi sharci darro ah ay ku ugaarsanayeen shimbiro 18 November 2019 xisbiga wadani ayaa sameeyay mudaharaad ay ku diidan yihiin komishanka cusub muddo kordhinta iyo dib u dhaca doorashooyinka taas oo sababtay in la xidho afhayeenka xisbiga wadani iyo xoghayaha guud ee xisbigaasi 18 November 2019 tafatirihii telefishinka Home Cable TV Abdiqaadir Coday oo xabsiga loo taxaabay walow ilaa ay hadda uu xiran yahay 24 November 2019 golaha guurtida ayaa muddo 2 sano ah u kordhiyay golaha wakiilada halka iyagana ay 3 sano ay kororsadeen waxaana arintaasi cambaareeyay xisbiyada mucaaradka ah 5 December 2019 waxaa jeelka laga sii daayay Sheekh Aadan Sunno oo ah culimada ugu caansan Somaliland kaasi oo uu jeelka ku xirnaa muddo 2 sano ah 8 December 2019 waxaa magaalada Hargeysa ka dhacay musiibo taas oo ku dhacday qoys hurdo oo gurigoodii ku dumay waxaana qoyskaasi ay ka koobnaayeen aabbo iyo hooyo uur leh iyo laba carruur ah oo ay iyagu dhaleen kuwaasoo dhammaantoodba ku geeriyooday burburkii guriga uu u geystay 10 December 2019 labada xisbi mucaaradda ayaa madaxweynaha ku eedeeyay dib u dhaca doorashooyinka golaha wakiilada iyo kan golaha deegaanka 16 December 2019 waxaa dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ay Somaliland u gacan gelisay Mukhtaar Sheekh Maxamuud Suubane oo ka tirsanaa madaxdii sarsare ee sirdoonka nidaamkii waqtigiisu dhacay ee Cabdi Maxamed Cumar Ilay kaasi oo lagu eedeeyay in uu dambiye ka galay dhulka ay degto Soomaalida Itoobiya
Kenya 12 Diseembar 2019 madasha wada tashiga Somaliland oo maxkamadda sare la geysay dacwad ka dhan ah muddo kordhinta loo sameeyay baarlamaanka iyo jiritaanka golaha guurtida oo muddo dheer jirsaday 16 Diseembar 2019 gudidii iskeed isku xilqaantay oo u kacday khilaafka xisbiyada iyo xukuumadda ayaa soo saartay go'aamo lagu soo afjarayo khilaafka siyaasiga ah waxaanay go'aamiyeen ay soo saareen laba qodob oo kala ah in komishanka cusub la kala diro komishankii horena dib loo soo celiyo go'aankaasi oo markii dambe ay aqbaleen labada xisbi mucaarad iyo xukuumadaba 19 Diseembar 2019 waxa magaalada Hargeysa soo gaaray wafdi ka socday beesha caalamka isla markiiba waxay kulan saacado badan qaatay ay la qaateen gudidii iskeed isku xilqaantay ee dhexdhexaadinta ka dhaxooday xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka wafdigii ka socday beesha caalamka oo taageeray go'aankii ay soo saareen gudidii isxilqaantay ee xalinaysay khilaafaadka gudiga doorashooyinka ee cusub iyo muddo kordhinta loo sameeyay baarlamaanka 22 Diseembar 2019 ciyaartoy ka socota dalka Kenya oo la ciyaartay kooxaha ka jira Hargeysa iyo Boorama isla 22 Diseembar 2019 waxa magaalada Muqdisho u dhoofay gudidii taakulaynta beledweyne ee Somaliland oo siday qaaraan dhan 600 oo kun oo dollarka Mareykanka ah oo loogu deeqayay dadkii ku dhibaatoobay fatahaadihii webiga Shabeelle isla 22 Diseembar 2019 xisbiyada mucaaradka ah ayaa aqbalay gogashii madaxweynaha uu fidiyay oo ay kaga wada hadlayeen sidii khilaafaadka doorashooyinka loo soo afjari lahaa 25 Diseembar 2019 madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi waxa uu xariga ka jaray carwada warshadleyda dalka ee wax soo saarka 27 Diseembar 2019 waxa la xiray xogaayihii arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaradka ee UCID Maxamuud Cali Saleebaan Ramaax 28 Diseembar 2019 waxa magaalada Hargeysa ka dhacay shirweynihii dalada dhalinyarada Somaliland waxaana halkaasi lagu doortay gudoomiye cusub Cabdicasiis Maxamed Jaamac oo hogaamin doona ururka dhalinyarada Somaliland ee Sonyo 3 sano ay soo socota 30 Diseembar 2019 gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland Baashi Maxamed Faarax ayaa sheegay in uu dacweeyay siyaasiga caanka ah ee Maxamuud Cali Saleebaan Ramaax kadib markii uu ka been abuurtay gudoomiyaha hase yeeshee uu sheegay markii dambe in uu cafiyay xogayaha ugu dambeyntii 31 Diseembar 2019 xarunta xuquuqul insaanka Somaliland ayaa sheegtay in 88 qof loo xiray raay dhiibasho ama xorriyatul qowl daawadayaal intaasi waxaan ku saafmeerinaa barnaamijkii gaarka aynu ku eegeynay sanadkii tegay ee 2019 dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay Somaliland waxaa barnaamijka soo saaray isla markaana idinla socodsiinaya anigoo Farxaan Maxamed Cali Farxaan Fantastiga halka aad ka daawanaysaan waa channelka Dulmidi Tube fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka Dulmidi Tube ha ka ilaawin inaad subscribe to saarto gambaleel ku furato si aad ula socoto wararka warbixinooyinka iyo barnaamijyada idin xiiso gelin doona aad ugu mid noqoto daawadaha ugu horeeya ee daawada mahadsan intaan barnaamij xiga aan dib hawada ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa ilaahay sanadkan khayrkiisa hayna waafajiyo kuwii ka faa'iideystana ilaahay naga dhigo sanadkan sanadkiisana bashbash iyo barwaaqo ilaahay haynu gaarsiyo sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh